And our next speaker is Safia Abdinur Mohammed. Safia she got her bachelor's degree from the University of Massachusetts, Human Services, her master's degree in Springfield College for Organizational Management and Leadership. She is currently a candidate for PhD in Chapala University for General Psychology. Safia to the podium. Assalamu alaikum. ومحسنتهين أدبر السلام يا أبابلياش شركان وحنك بعد السلام يا شارية البنفر أدبر في عنه كسوق الكلكين ما بدل ذيك شكتين لكن سعفكين دعوان كاها وسلامتهين موضوعي wuxuu ka qayb koobnaan doonaa 3 qodob oo kala ah baaritaan aan ku sameeyay kororka dadka Soomaaliyeed wali hawshaas way socotaa ma soo gabagabeyn laakiin gobolka ogaadeen iyo qayb ka mid ah ayaan soo gabagabeeyay waxaan ka daalay ilaa maalintaas jirahayo wax gartay ilaa maanta in la yiraahdo Soomaalidu waa 10 milyan oo Soomaali 7 milyan u dhantahay reer kasta aan aqaano waa 4 jibaar waa 10 jibaar mee arrintaas baan ka sameeyay waxaan soo ogaaday tusaalahan soo qaatay 2 su'aalood baan dadka weydiinay markaan baarayay 1990gii hooyada iyo aabaha inta ay dhaleen meeqa qof bay ahayd su'aasha kalena waxay ahayd 2018 hooyada iyo aabaha wixii ay dhaleen ama midba gaar ah u dhal ama isla dhaleen iyo waxay ka sii dhaleen meeqa ahayd waxaana iga soo waxay wax madaxayga ka weyn marmar waxaan isiraahdaa ma psychologically baan u aaminay inaan numbarka naloo sheegay aanaa waxba ka bedeli karinin waayo aniga waxaa ii soo baxay qoyskii ugu yaraa ugu 4 jibaarme qoysas 23 jibaarmeyna way jiraan average-ka baarideedii markaan soo saarana reerku 10.5 baa average-ka reerka ahi koro taas macnaheedu waxa weeye 1990gii gobolka ogadeen 4 milyan hadday ku nooleed 40 milyan baa maanta ku nool iyo bar saddex qaybood way baarideeda Soomaali Jamhuuriyadda NFD iyo ogaadeen saddex asbaan u kala qaybiyay labadii kale marka ay maanta gobolkan kaliya baan soo bandhigayaa insha Allah way socotaa marka horta aan qalbi ahaan u aamino sheekada ah Oroma Ethiopia dadka ay gumaysato ugu badan ah xagga iska dhigno ma ahan laakiin waa inaan xisaabta ku darnaa dadkii waxaan ka helay dadku kulli ogaadeen iyo mawda joogin reer baa waxaa laga yaabaa inay 4 meelood 5 meelood 4 ka midii ama jamhuuriyadda joogaan ama adduunka ku fiirsan yihiin laakiin numberka dadku waa saas u koray laakiin xirnimada maskaxeed bay ka mid tahay inaan aaminaa inaan saas u tiro badan nahay laftigeeda assalaamu calaykum waxaan arrinta kale mawduuca kale u yahay magaca ogaadeen ma khasaaro noo yahay mise faa'iido in dhulka loo bixiyo sababta igu kaliftay inaan magaca baarid gaara ku sameeyo waxay tahay waxaan deganahay gobol la yiraahdo Massachusetts waa qabiil calibaystayna hal qof oo Soomaali ima weydiin sababtan gobolka uu deganahay calibaystayka la magaca laakiin markaan iraahdo oo aan la faanahay su'aasha waraysa waxay ogaadeen maxaa ku galay waxa kale la yaab leh gobollo badan bay magac qabiil ah Indiana ka mid ah Missouri baa ka mid ah South Dakota ka mid ah waxa ka mid ah Tennessee waa jufa qabiilka Cherokee ka tirsan Texas oo kale ayana magac bay ku soo jeedaa qabiil ah oo qabiilka koodo la dhahaayay waxyaalaha cajiibka ah Soomaalida ku arkay waxay tahay gabar yaraha reer wadaniyiin dhalan bay waxay u bixiyeen ogaadeen qof kasta wuxuu yiraahdaa gabadha maxaa ogaadeen loogu baxshay gabadha yaray baa waxay tiri Soomaalidu waxay la baxdaa Shiina iyo Hindi iyo Pakistan iyo Falastiin iyo England iyo German la ismana weydiiyay bay tiri ogaadeen ma aqoontay eeda
marka waxaan u maleeyahay aqoontu inay dhibaato noo geysatay midda labaad gumaysigu markuu yimid wadamada adduunka u yimid calaamaduu ku samaystay maadaama isagu uusan dad aqoonluhu ku soo dhaweeyay meesha ugu horreynin waad la socotaan dadka shorthandka ama tenografiga farta la dhaho wariyaashu isticmaali jireen markaad fiirisa calaamaday u egtaha laakiin macnayaal bay leedahay sidaasi lamid ahay gumaysiguna wadamo fara badan magacyo ayagu ay u samaysteen baa ilaa hadda loo yaqaanaa waayo taariikhda ninkii iyo awoodda lahaabaa wax qorahayay wixii uu dukumenti gareeyay baana wax adduunku qaatay naloo kaga dhiga magaca ogaadeeya hadduu ka mid noqday calaamadaha noocaasa in waddanka maalintay ogaadeeya loo bixinhayay oromiya tigraya amxaara tasbe mididif afra iyo mukanin loo bixin lahaa iyo in ogaadeeya loo baxsho kee guulno ah soomaaliyeed haddaad aaminsan tahay ina ogaadaya loo baxshay guul inay ahayd guul leh weli dabba aamusan waan ku faraxsannahay inaan maanta isku raacsannahay nin wadamada reer galbeedka ka mida oo xisbi madaxka ah baan qadiyadda anoo ugala hadlahayay baan waxaan uga sheekeeyey inuu magaca gobolka ogadeen uu qabiil soomaali asalkiisu yahay markaasuu wuxuu igu yidhi mayga hubtaa in magaca ogadeen qabiil yahay saa'irahaa markaasuu yidhi aniga ma aqoon malihin laakiin gumaysiga dhaqankiisaan aqaana makula tahay ma fahamsan tahay sababta ugu baxshay saa'iro maya suu yidhi inaa intiina kale gacmaha ka laabataan buu ugu talagala takbiir ogaadeeya insha allah ogaadeeya waa xoroobaysaa magaca ogadeen marka amxaarada iyo xayle salaase ayagoon ku baraarugsanayn bay dukumentiga gobolka ku qoreen maabka etoobiya ku dareen waxaana la ii sheegay kelmad inuu isticmaali jiray ogadeen habasa anugu amxaari ma aqaana leeyihi libaaxyada ogaadeeya la macnotaha soomaaliyey wallaahi inta gumaysigu wakti geliyey dadka aad oo ayna ku xadlinaysaan qabiil uu geliyey gumaysigu inuu kasbada ma jiro haddii ay gumaysi rabaan inay raacaan laakiin ayaga oo xornimo doona inaad magaca colaad ka dhigtaan dhabarkana ka garcadaan cadaalad ilaahay maahan ma jiro qof soomaalinimada loo ciqaabay inta oo anala soomaalinimo loo ciqaabay mana jiro cidka soomaalisa oo anala soomaalinimada wax u dhibtooday oo sibic iyo saxariir oo gabdhahooda iyo raggoodiiba u dhibtooday welina aan go-aankoodii iska bedelinin waa oo anala haddii arrintu aysan mabda ahaan lahayn qabiil ahaan lahaydna waa horay sida oo anala SPM u baaba'day u baabi'i lahay marka walaalayaal tigreegaa ku baraarugay marka inuu magacii ogadeen taariikhda ka mid yahay markaasuu magacii sidii xeryihii concentrationka hitler number u bixiyey gobolka markaasaa dad fara badan kililka shanaad ku dhahaya waa nasiib daro marka waxayna ka mid tahay tirtiridda taariikhda oo analaf iyo aasaaskeedii kama hadlaya aasaasayaasheedii baa nala jooga xogayaha laakiin waxaan kaloo ka hadlaya arrinta ah oo analaf soomaalida ma ku faa'iiday mise way ku khasaartay soomaaliyey etoobiya ayadoo fakriya oo tuugsatay madaxa naga qabsata ma qiyaasi kartaa ilaahay baan ka magan galnee etoobiya oo khayraadka ogaadeeya la soo baxday oo 120 milyan soomaaliya ku soo gutaacaan miyaanaan bad aneel ku dhacday noqoneen ninka khayraadka ka hortaagan oo xabadda la hortaagan soomaalinimada asagaa furo u ah maanta jirta ilaahay baana ku mahadsan waxaa jirta etoobiya reer galbeed iyo gaalo iyo balaayo dhan waxay isku dayeen in soomaali la liqsiiyo soomaalidii waa la qaado afka etoobiya la gashay laakiin oo aneef baa dhuunta fadhiisatoo laga liqi waayo
waaye ilaa maanta laydinka soo matajiyey. waxaa faaftay arrin la yidhaahdo Itoobiya reer galbeed baa wata, siyaasiga hebelna Itoobiya wadata, qabiil hebelna hebel baa wata. waxay meesha ka saartay inuu qofku asagu iswado oo ana waxay istaagtay in ayadu iswado dadkeeda ku tashato ciqaab iyo cabalna u adkaysato. sababtuna waxay ku dagaalamayso u taagan tahay baa xaq ahaa, baatilku waa iska baaba'aa. maalin baa waxaan dhagaystay qolyaha social mediada shaydaanka ugu jira baa wuxuu yidhi oo anala foodaarood noqotay. markaasaa xubna ka xanaaqeen oo in oo ana qabiil lagu sheego. waxaan idhi waryaxag wax inay hoos ka soo bilowdaan oo koraan baa ka fiican in kor ka soo bilowdaan. oo anala waa hore wuxuu sanaawi ka bilaaba waa ree haaruun, ree isaaq buu ka dhigay, maxamed subeer buu ka dhigay, ogaadeen buu ka dhigay. haddii hadda daarood laga dhigayo soomaalina waa loo wadaa ayaa laga xanaaqo. xilliga kala guurka oo anala waa u diyaar garowda. waxaa jirta waqti hore oo soomaalidu aysan oo anala dhagaysan jirin baana halkan kaaniyo garowga 2 daqiiqo waa kaa diiday inaan ku dhigo taleefon. oo anala waa waqti hore ka diyaar garowda intaan kala guurku bilaaban. odaga John Maxwell la yidhaahdo buuggiisa Leadership Goal ayuu maruu ka sheekeynayay. wuxuu yidhi annagoo buug tours wiil ku maqnayn ayaa diyaaraddii markay soo degaysay buu yidhi dabayl iyo duufaan ugu kaceen baa diyaaraddii hoos u hoobata. waa qaracana hal mar baa wuxuu yidhi bayloodkii inta diyaaraddii sheedhala gashay hawada ku cesha. waan faraxna waa celebrate. markii la degay baan inta wimid baa waxaa idin yidhi warniyahow goormaad qaadatay go-aanka inaad diyaaradda hal mar hawada saa ugu celiso? 15 sano ka hor baan qaatay buu yidhi markaan tababaranayay. oo anala xilligan Itoobiya iyo kala guurka iyo go'aamadeeda waqti hore sii qorshaysay waana ogeyd inay soo socoto. waxaan xasuustaa xogayaha Cabdiraxmaan Maadey 2015 waa 4 sano ka hor mar jasiiro wareysanaysay wuxuu yidhi Itoobiya way karkaraysaa. dadka Soomaaliyeed waqtigaa ma dhagaysanayna waa fiyoonaysaa bay la dhihi jireen. ilaahay bay mahad u sugnaatay. waxa weeye successful people John Maxwell sidoo kale successful people make the right decision early on and manage those decisions on daily basis. oo anala waqti ku habboon bay go'aan qaadatay, kan heshiiska iyo kan dagaalka iyo waxaan waqti ku habboon bay qaadatay. Soomaaliyeed ama ku baraarugsanaada ama ha ku baraarugsanaaneen. Nelson Mandela intaasoo sano buu u dhirnaa caddaanka. aakhirkiina waddanka asagaa madaxweyne looga dhigay. sababta oo ay tahay waa la ogaa aakhirka dhulka inuu nin madow ka talin doono. nin ka caqli badan Nelson Mandela inuusa imaamayn baa la ogaaday. saasaa transitional timeka asaga loogu doortay. waa la ogyahay urur oo anala ka bisid geeska Afrika inuusan joogin ayadaan xukunka qaban doontay. haddaba u diyaargarooba insha allah. waxaa kaloo la yidhi ragga jacaylkiisa waqtiga barwaaqada la imtixaamaan, gabdhahana jacaylkooda dhibaatadii dheer la'aanta la imtixaamaan. oo ayada xukun haysana waa la soo imtixaamay, ayadoo harag shabeelle raadinayna waa la soo imtixaamay. labadaba way ku soo gudubtay. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.